السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسكينكي على مسقاعية halkan aad u jeedaan magaalada Minneapolis xaafadda la dhaho Wayzara xaafadda kaladan deegaan markaad maqasho xaafadda kaladan deegaan waxa qalbiga ku soo dhacay xaafad dabaqyo dhaadheer leh oo qurux badan laakiin xaaladdu sidaa way ka duwan tahay dadka ladan ma deegaan dabaqyo dhaadheer waxay deegaan meelaha maartay dhirta badan maartay magaalada ka baxsan ee duurka ah bay deegaan waad u jeedaan waxaas oo wadoon socda waa laba guri bas ay tagaan waa driveway duurka cidlada ay macnaheedu ku jiraan dadkan waa duurka cidlada macnaha taa waxay ku tusinaysaa dhirta qiimaha ay leedahay xaafadahan guriyo gaagaaban baa ku yaala waxaan u maleynayaa guriga ugu raqiisan baa qiimihiisu ka kacaya 3 milyan oo $4 milyan oo dollar 3 milyan oo dollar buu ka kacayaa halka guryaha magaalada bartankeeda ahana ee kuwan ka yar ka waaweyna lagu kala gato qiimaha ilaa 400-300 oo kun tawdhaxaysa lagu kala gato marka waxaas oo dhan dhirta way leedahay inagu markaynu Afrika joogno wadankeena markaynu joogno meesha dhirta badan waxaynu dhahnaa waa lama galeen waa bahal daaqeen waa balaayaan dhahnaa laakiin wadamadan dhirta ayaa maxay ahayd lagu faanaa dhirta ayaa bahalkii ah oo ka hadan ka soo baxay xaafadii wali wajadaan dhankan waa taas xaafadda waa taas saas bay macnaha u geeda badan tahay marka dhirta waa lagu faanaa inaguna dhirteena waynu gubnay oo aynu shidnay baynu dhoofinay iyadoo dhuxula taas waxay ku tusinaysaa inayna wax wadaniyada haba yaraatay nagu jirin oo ina wadanka aynu leenahay aynaan danka lahayn bay ku tusinaysaa dhirtu waa asaaska nolosha iyada oo ilaahay baa horta og oo wax kasta ilaahay subxaanahu wa ta'aala waa og laakiin dadka cilmi sayniska waxay dhahaan dhirtu waxay soo jiidataa roobka marka dhirtu waa ilaahay subxaanahu wa ta'aala baa u deeqa oo biyaha iyo roobka siiya sida nafteena ay ugu baahan tahay ilaahay noo irsaaqo buu dhirtaana ilaahay roobka ugu irsaaqaa markay baahato ilaahay subxaanahu wa ta'aala dhirtaas geedo wuxuu keenayaa roob ay ku baxdo oo ay ku barwaaqowdo halka inaguna maxay ahaydey sida markaynu inagu gaajoono ilaahay uu inoo siiyo caafimaad iyo cunto iyo raashin ilaahay inoo siiyo waa dhirtanna markay u baahato ilaahay subxaanahu wa ta'aala roob iyo raxmad ugu keenaa si ay u degto oo ay ugu qabowdo oo ay sidaa qurux badan u noqoto marka dhirta ha la beerto dhirta ha loo dadaalo maxay ahaydey wakaa waa ujeedaan quruxdeeda xaafaddaas waa ujeedaan waa xaafadda Wayzara hadda waxaan soo galayaa city kale oo la dhaho Minnetonka baan soo galayaa highway 7 baan hadda ku dhacayaa marka aad iyo aad baan islaamayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.